guddigii ku-meel gaarka ahaa ee doorashooyinka Puntland gudoomiyihii gudoomiye ku-xigeenkii iyo dhammaan xubnaha sharafta leh sidoo kale inaan salaamo guddiga rasmiga ah ee doorashooyinka ee Puntland dhammaan xubnaha inta joogta iyo inta maqanba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bacda salaan sidoo kale waxaan rabaa howlwadeennada iyo saraakiisha kala duwan ee xafiiska doorashooyinka ama hay'adda doorashooyinka iyagana sidoo kale inaan salaamo. intaa dabadeed aad iyo aad baan ugu faraxsannahay maantay ka guddi doorasho ahaan inaan munaasabadan isugu nimaadno munaasabadaas oo ku xusan xil wareejin annagu ka guddi doorasho ahaan aan kula wareegayno xilkii iyo mas-uuliyaddii aad soo hayseen guddigiina ku-meel gaarka ah waa waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsannahay. intaa dabadeed waxaan rabaa inaan bogaadiyo oo halkan bogaadin uga soo jeediyo guddigii ku-meel gaarka ee doorashooyinka oo runtii sharaxaad badan laga bixiyey ama aynu ognahay shaqada ballaaran ee ay soo qabteen mandatekoodii iyo shaqadii waajibaadkooda uu ahaa sida sharcigu yahay ay ka soo dhalaaleen marka laga reebo wax yar oo duruufaha iyo caqabaduhu ay saamixi waayeen. laakiin waxaa la odhan karaa meesha hadda aynu marayno runtii shaqadaas intii badnayd waa la qabta oo maantay aynu ognahay inta badan golayaashii deegaanka ee degmooyinka inay leeyihiin maanta golayaal deegaan oo dadka shacbiga ahi ay codkooda ku soo doorteen. waana riyo ama himilo muddo la sugayay laga soo bilaabo asaaskii Puntland muddo dhowr iyo 20 sano hadda aynu ka joogno. maalinba meel bay soo maraysay waxaa xusid mudan dadaaladii kala duwanaa iyo heerarkii kala duwanaa ee guddiga ku-meel gaarka doorashooyinku uu soo maray maalinbana meel ay soo maraysay. waxaad nasiib u yeelateen haddaad tihiin guddiga ku-meel gaarka ee maanta jooga inaad idinku soo afmeertaan oo soo gabagabaysaan hawshaas. laakiin waxaa xusid mudan inaynu u mahad celinno xusno una ducayno dadaaladii kala duwanaa hadday yihiin dowladihii kala duwanaa ee Puntland soo maray iyo haddii ay yihiin guddiyadii ku-meel gaarka ahaa mid walba dadaalkiisa maalinba meel bay soo maraysay. marka waxaan isleeyahay munaasabadda halkan maanta aynu u fadhino miraheeda way inala leeyihiin oo haddaan intaasuu dadaala lagu soo bixinin maanta meesha aynu soo gaarnay ma aynu soo gaarnin. annagu ka guddi doorasho ahaan guddiga doorashada ee beek sida guddoomiye cabdirasaaq uu ka dhawaajiyey waxaanu aaminsannahay inaanu nahay natiijadii iyo mirihii guddigii ku-meel gaarka ee doorashooyinka ee tibek oo haddii aysan shaqada iyagu qabteen oo ku guulaysteen oo shaqada aysan soo afmeereenna aysan suurto gasheen dhismaha guddiga beek. intaa dabadeed si marka la fiiriyo gudoomiye ku-xigeen cali baa wuxuu yidhi aad baanu u nasiib badnayn. si marka la fiiriyo anaga laftirkayagu waxaan dhihi karnaa aad baan u nasiib badannahayo marka dhinac la yska barbar dhigo idinku waxaa laga yaabaa ama guddiyadii idinka horreeyey ee ku-meel gaarka ahaa in meel aan waxba ka jirinin oo asadka maanta la haystaa uusan jirinin oo shaqaalaha maanta jooga ee tababaran aysan jirinin inaad wax ka bilowdeen oo shuruucda iyo kaabayaasha kale oo dhan oo shaqada muhiimka u ah aanay jirinin. laakiin waxaan isleeyahay anaga laftirkayagu weli shaqadayadii hadda lama gaarin oo natiijadeedii kama hadli karno. laakiin waxaan isleeyahay nasiibka keliya oo aan hadda sheegan karnaa oo mid weyn ah waxa weeye hay-ad dhisan oo laga sheekeeyey shaqaalaheedii leh oo dokumentigeedii iyo siyaasadaheedii iyo shuruucdeedii in badan laga soo shaqeeyey oo asadkii u dhan yahay oo khibradda waxa ugu muhiimsan ah shaqooyinkii dhaca doorashaa la qabanayaa hay-ad doorasha qabanaysaa doorashaduna waa isku mid wixii laga bartay maalinba meeshay maraysay caqabaduhu isku mid yihiin. waxaan isleeyahay nasiib gaara ayay noo tahay inaanu maanta la wareegayno intaas oo maaragtay asad ah khibrad ah taladiinii ah
waana wax ilaahay loogu mahadiyo haddii aynaan shaqayn shaqo qurux badan qabana ma ay suurto gasheen intaas inaan maaragtay la wareegno annaga ka guddi ahaan niyaddayada waxaa ku jirta dareen ma qabna ah inaad intii hadda shaqo wareejintu ay socotay dareen aan dareemayno oo dhinaciina ka qabno la xiriira daahitaanka xil wareejinta ma jiro sababtoo ah waxaan dareensannahay oo dareenka nagu jiraa uu yahay mas-uuliyadda ballaaran iyo shaqada hay-adda tani dalka iyo dadka ay u hayso oo runtii himilo weyn ah oo ummadda tan reer Puntland ay hiigsanayeen muddo oo la rabo in laga miro dhaliyo maalinbana meel ay istaagto intaad soo gaarsiiseen oo idinka mandate-kiinu ahaa inta ka dhimanoo annagana mandate-kiyagu uu yahay halkaasaan ka sii ambaqaadi doona waxaan isleeyahay marka aniga iyo xubnaha kale ee guddiga doorashooyinka iyo idinka oo guddiga ku-meel gaarka ahaa mid walba niyadooda inay ku xooggan tahay mas-uuliyadda ballaaran iyo adeegga bulshadan loo hayay marka ka fiirin mayno wax dad ashkhaasa isku wareejinayaan oo xilal ama shaqo ah marka taasaan rabaa inaan ka xuso oo ka idhaahdo aad iyo aad baan idiin bogaadinayaa shaqadii quruxda badneed ay soo qabateen markii xil wareejin la samaynayo caadatan qolada xilka la wareegaysa hadalkoodu inta badan ma badna sababtoo ah wax badan oo ay sheegaan ma jirto ballanqaadka iyo wararka ay dhahayaanna waxay ku xiran tahay siday uga miro dhaliyaan shaqada laga sugayo iyo howlaha hor yaalla marka idinka waa idiin ogolnahay inaan idin dhegaysanno oo saaka hadalkeenu uu bato waxaan rajaynayaa ilaahay idankiis inaan ka faa'iidaysanno shaqaalaha aad ka sheekayseen iyo asadka aad ka sheekayseen iyo idinka khibraddiinna dad akhyaara odayaala dalkan iyo dadkan usoo shaqeeyey dalka iyo dadka mustaqbalka leh jooga ka mid ah roolkooda kule aan la dafiri karin baa tihiin macnaheedu maaha haddaa xilkii wareejiseen inaad ka baxaysaan meesha laakiin taladiinnii iyo garab istaaggiinnii iyo war halkaa ha laga leexiyo isaanay ku fiican tahay waxaan isleeyahay xataa annagoo aan idinka codsan ayay waajib idinku tahay maxaa jira shaqada tani waa shaqo maalinba jiil baa jooga maanta innagaa joogna 98 markii Puntland la aasaasay dad baa joogay oo sidaa wax u dhigay maantana innagaa ahdaaftii iyo himilooyinka ay dhigeen oo aan suurto gelinin baynu innagu maanta rabnaa inaan xaqiijinno marka innagoo dhan mas-uuliyad ina wala saaran weeye qof walbaana dhinaciisa uu iska dirayo kii markaa jooga oo ku magacaaban iyo kii ka baxay intaba waan ku kalsoonahay dad soo shaqeeyey oo khibrad badan leh baa tihiin filiye badan ka soo kala shaqeeyey oo kala duwan annaga marka la fiiriyey in badan inaad naga khibrad badan tihiin ay u badan tahay waa idiin baahannahay shaqadaa idiin baahan hawsha aynu rabno dalkan iyo dadkan inay gaaraan oo hay-adda tani ay ugu xilsaaran tahay ayaan idinka maarmi doonin ilaahay idankiis aad iyo aad baan rabaa inaan maaragtay mar labaad iyo mar saddexaad idinku mahad celiyo dardaaranka iyo talooyinka aad bixiseenna waan weelayn doonaa insha Allah waana ku dhaqmi doonaa waxaan rajaynayaa ilaahay idanka shaqada ballaaran ee nala ka sugayo oo ay ka mid tahay doorashadii madaxtooyada oo ay ka mid tahay doorashadii golaha wakiilada oo ay ka mid tahay dhammaystirka doorashada golayaasha deegaanka ama degmooyinka aan weli qabsoominin ay ka mid tahay haddii afti timaado oo ay mandate-ka guddiga ka mid tahay iyadana waxaan rajayn doonaa sida ugu wanaagsan inaan uga soo dhalaali doono anagu waxaan aaminsanahay sida idinku u aaminsanaydeen sharciguna qabo hay-adda tani inay tahay hay-ad madax bannaan sharciyad leh kaliya u hoggaansanta sharciga iyo dastuurka una xilsaaran shaqada doorashooyinka dalka kan taasaan ku shaqayn doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo stakeholderska shaqadaani ay qusayso oo ay ugu horeysa axsaabta siyaasaduna waan la tashanaynaa laakiin mar walba waxaan ku shaqaynaynaa shuruucda iyo madax bannaanida shaqo ee hay-adda tani ay leedahay ma moogin oo marka saa la yidhaahdo macnaheedu ma aha hay-addaani inay tahay hay-ad outside ka ah dowladnimada oo hay-adaha dowladdu iyagoo kala madax bannaan saddexda tiir oo hadda iyadoo ayba ka mid tahay iyagoo kala madax bannaan baa haddana dastuurka iyo sharcigu wuxuu qabaa inay waajib tahay inay wada shaqeeyaan marka ilaahay idankiis waxaan rajaynaynaa fahamkaas
idinkuna aad ku shaqaynayseen annaguna aan fahamsannahay inaan ku shaqayna ayaan rajaynaynaa caqabadaha la sheegay hore idiin soo maray annagana na hor yaalla waxaan aaminsannahay inay ka mid tahay shaqada oo nama moral jabin doonaan hadduu alla yidhaahdo waa ka faa'iidaysan doonaa sidii aad ula maaragtay tacaasheen kuwa isku midka haddii kuwa kala yimaadaanna iyadana hadde insha allahu waxaan rajaynaynaa inaan sida ay tahay aan u maarayno oo aysan naga leexin hadafka iyo taargetka iyo shaqada hay-adda aan u xisaaran tahay intaas maa waxaan rabay anoo tix raacaya hadal badan annagu ma aanu rabinoo dee mar hadday xil wareejin tahay waxa weeye inaan idhaahno war waa mahadsantihiin meesha wax soo gaarsiiseen laakiin waxaan tacliiqinayay oo commenti ka bixinayay intii aan ka xusuusto intii aad tirahdeen walaalayaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin soo dhowaada dalkaan iyo dadkaanna innagoo isku mid ah oo wada soconna ayuu ina sugayaa shacabka reer puntlandna waxaan rabaa halkan inaan fariin uga diro sidii guddigii ku-meelgaarka ahaa shaqadii uu waday oo ay ahayd ummaddan in la xaqiijiyo xaqoodii in dib loogu celiyo oo ah xaq ay leeyihiin inay waxna dooran karaan lana dooran karo tubtii baanu ku taagannahay wax weyn isma bedelin keliya waxaa isbedelay xubnaha guddiga iyo mandate-ka iyadii baan ku shaqaynaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo dowladdana waxaan ka rajaynayaa inay dee ka go'an tahay oo waxyaalihii loo doortay ay tahay siday idinla shaqaysay iyo si ka dhowbaan ka filaynaa inay noola shaqayso dadka wax tabanaya iyo axsaabta weli xubnaha aan soo dhammaystirina waxaan rajaynayaa inay golaha ku soo biiraan aad iyo aad baad u mahadsantihiin